الشيخ وحنون قنايا مدحوينه هراء دلكن أو موادن السجون شرعية هيسن إحدى جن فيلا صومالي شان يتمن كمي دلكني وحجلا يا حالة أضيق ومدحوينه أنو شرعية هيسن وبرلمان أنو جرين وسدح دولة قبلات أنا شرعية لهين والله بقى مقنطعي ومن نمدي سومالي لان اي خطر كجرتو شان يتمن كمي ومالين دليرada Soomaaliyeed maalintooda ay tahay inay hurdada ka kacaan dalkii iyagu ay soo xoreeyeen u soo halgameen horumarka lagu naaloonayo ay gaarsiiyeen inay mar kale u istaagaan maalmahan magaalada Muqdisho dawladdii arrimaha dhulka waxay noqotay jeenambo qof sakaraad ah oo jeenamboobayo oo tusaale u ah iyaga laftooda inay fahamsan yihiin in waqtigooda dhamaaday ay rabaan wax walba oo saxay ah inay ummadda Soomaaliyeed ka sii qaataan annaguna waxaan leenahay war dadka Soomaaliyeed lama barakicin karo dhulka dawladda shakhsiyaad ma iibsan karaan haddii wasaaradihii la iibsaday oo xarimaha ciidanka la iibsaday oo MCAjada caafimaadka la iibsaday oo meelihii waxbarashada dhan la iibsaday oo goob walbo dawladdu ay lahayd suuqa dalaaliin ay ku kala iibsanayaan adduunyadu sidee noo aaminaysaa ummadda Soomaaliyeed sidee dawladnimada u dareemaysaa dalkan inuu leeyahay dawlad sharciyad iyo nidaam ku dhisan dawladdii loo dhaariyay inay shacabka Soomaaliyeed iyada u adeegto hooyo 80 jir inaanay dhaafin aabba indhala inaanay dhaafin caruur agoon inaanay dhaafin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo difaac ku jira caruurtoodii inay barakacinayaan ciidamadii amniga magaalada la sheegaya ciidamadii saaka ugu dambeysay oo guryahooda laga barakacinayo ee guryaha banaanka taagnaayeen kuwii soo dhaawacmay oo xuquuqda dalkan ku lahaa baa cagaf subax loo soo qaataa dalaal iyo cagaf isbiirsada ay dawladnimada noqoto oo runtii khatar ah waxa kale oo cajaa'ib ah in qof walba oo Soomaaliyeed oo magaalada iyo Soomaaliya jooga barakicintu inay saameyn ku yeelato kii dhul lahaana dhulkiisa qiimihiisa 70% ama 80 hoos u dhacay kii meel deganaa waa laga qaxiyay kii meel ku ganacsan jirana dukaankiisa waa laga dumiyay waxay quusanaysaa rajada ummadda Soomaaliyeed ay ka qabeen dawladnimada dhulboobku waa xarka koostay xeyndaabku waa soo dhaafay xuduud walba waa ka gudbay وحقوق الإنسان هذا dadka Soomaaliyeed oo hadda daawanaya kuwa la barakicinayo waxaan rabaa inaan halkan uga cadeeyo iyagu ku imaanaya guriyaha ay sharciga u leeyihiin ku imaanaya ee hadda intay goor tahay kulligeen aan istaagno ee aan badbaadino ummadda Soomaaliyeed ee subaxi cagafka la hortaagay inta waxa dheer qof kasta oo Soomaaliyeed oo isku daya inuu hadlo waa la xiraaya shacabka Soomaaliyeed dhalinyaro iyo waayeel hooyo iyo aabbo qofkii raba inuu cabiro xuquuqdiisa dastuuriga ah ciidan baa u jooga wala soo xiraaya yani dawladdan aragtideedu waxay tahay na eegta na fiirsada marqaatino noqda aan xuquuqdiina ku tumanno aan dhulka boobno aan dadka dhacno qofkii hadlana aan soo xirno haddii marka la dul qaadan karay ummaddu way dul qaateen waxa la soo gaaray waqtiga annagoo wada jirna kulligeen si nabada aan u dhihi lahayn maya arrimaha barakaca Soomaaliya waa dalka kaliya oo ay ka barakacayaan dadkii xoolaha haystay magaalada Muqdisho ganacsatada xoolaha haysatay
oo ka ganacsi jirtay ayaa guuraysa hadda waxay u guurayaan meel walba isbaara u taal meel walba lacaga looga rabaa 10 canshuurood oo kala duwan oo aan qasnada dawladda ku dhacay oo dad gaar ah iska qaadanayaan ayaa ummadda Soomaaliyeed dul saaran hadda ganacsatada waxaa la leeyahay 3 bilood oo soo socota soo hormariya canshuurta dawladdana muddaxileedkeedu wuxuu ku ogyahay 15 May dhul boobkii dad boobkii baa soo galay canshuur boob baa soo galay waxaa loo baahan yahay marka ummadda Soomaaliyeed annagu dal kale ma lihin dalkani waa dalkeena 20 milyan oo Soomaalida ah oo kulli xuquuqda wada leh waxaana la ka rabaa inaan ilaalino qof walbana waajibaa saaran waajibka inta halkan taagan kaliya ma saarno. It's the price of a return train ticket from Manchester to London. In economy. Probably sat on the floor next to a drunk stag group. Soomaali waxaan rabaa inaan galabta xasuusiyo waxaan ku noolnahay adduunyo dal walba isagu isku mashquulsan yahay waqtiga la iscaawin jiray la soo dhaafay qof noo soo gurmanaysa male adduunyaduna way naga sii jeesan rabtaa dhaqan xumadeennuna tusaale ayay ka tahay in la ka sii jeesto Soomaali waxaa la rabaa markay isku tashato meel walba ay joogto annaga waxaan rabnaa nabadda iyo midnimada iyo horumarka yar oo aan ku dhawaad 30 sano dalkan uu soo sameeyay oo kulligeen aan wax ku soo darnay inaan ilaalino dawladda iyada ciidan abaabulaysa iyada xayndaabka nagu soo xirtay iyada dhaqdhaqaaqeena yareysay iyada wariyaasha xiraysa iyada shacabka xiraysa dawladdi loo dhaariyay ayaan sharciga ilaalinayn annaga u taagan sharciga oo ilaalinayna sharciga oo ay nala tahay waajib dastuuri ah inaan ilaalino sareynta sharciga doorashada la sheegay ee la yiri doorasho qof iyo cod waxaan rabaa inaan idin sharxo sida ay u dhacdo hadda waxaa la yiri dawlad goboleedyada laga qabanayo doorasho qof iyo cod ah doorashada qof iyo codka ahi waxay ka dhacdaa villa Soomaaliya waxaa sii yimaada madaxweynaha iyo xisbigiisa inta ugu madax fiiqan waxay ka arrinsadaan aan doorasho galno annagoo fadhina qolkan koonfur galbeed aan u dooranaynaa gacanta la taagaya qof baa loo asteynaya galmudug hirshabeellana sidoo kale doorasho qof uu leeyahay qola ay leedahay shaati ay tushaan rabaan inay xukunka ku joogaan ummadda Soomaaliyeedna ma aqbali karta annaguna ma aqbali karno ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u baaqo shacabka Soomaaliyeed khatarta dalku uu wajahayo ganacsada kama badqabi doono ciidan kama badqabi doono shacab kama badqabi doono dhalinyaro kama badqabi doonaan hooyooyin iyo aabbayaal kama badqabi doonaan mid xoolo haysta iyo mid aan xoolo haystanba way saameyn doontaa waxaan dhihi lahayn marka aan leeyahay Soomaaliyay u istaaga sidii dalkan aan u badbaadin lahayn madaxweyne Cali Sheekh waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waa ku sharaftay mar ma aha laba mar bay ku sharaftay maalintii 15 May 2022 teendhada aan fadhinay waad ogeed in lagu doortay 4 sano sharafti ummadda Soomaaliyeed ay ku sharaftay ha ugu bedeleen dhibaato iska fariiso intaan ka badan lama qaadi karo waa la dhibtooday xabsiyadu waa buuxaan oo dadku waa barakaceen oo waa faqriyeen oo waa taataagan yihiin xagee u socotaa maxaa ka barata ana qaad waxaan